كانوا أرضي بقى كصباح أنا مركان كبحي secondary school شيخ كلاس كيجي أفريتون بانوه هو secondary school وكقولي ودن كاسور نشر حمرنا لبس secondary school باكر واحد جامعة هذا كبحة هذا وجود بطان لبعضن صدهم بيع مركز دولة مدى لهلية وهم بدنين وقوية هي قليها كونفورت مركاني وعيقوم مغتر رشد الصومالي ذو كلي واتشعلان لها إنا كأقدوا هذا واتشعلان لها هذا نقول هدو سياسة كتيرو ساد دون تدو حمشي كرتين ومقوري كرتين إنا وحقورانا واتشعلهاي ميل جامعة أما تشجعها النقطة أما السبب النقطة ليش يدوني سبب النقطة هدي بأرنتا عن وضع أي شقين ويدي واتشعلان لها ميلا نور بتوجيس كأفريقيا أنا كفوجان وارمها كالصعدة أما وركيدا إنان حيو أما أن وحكا قرى واتشعلا حد وحكو سنتها دولدين الصومالية تليش بدل تسوق حكومة خلاص بدله والله دي runtii waxa aan maqlaaba horta nabadda ugu weyn laakiin de halkan kuma go'na waxa sababa ka socda halkan nabad hadda waa muuqata oo gobolka qura ee ilaa heer nabad ka jirto weeye horana markii horeba Soomaalidu de waa ahaayeen shantii qowmiyadood ee maamulka iyo waxaan dhisay laakiin effectively maamulka qoliyaha TPLF ay dhiseen wuxuu ahaa maamul highly centralized oo wax walba awoodoo dhani ay taalo Addis Ababa waxaan u malaynayaa hadda siday wax u socdaanna waa ilmi roganaysa waa foolanaysa laakiin waxay dhali doonto runtii wax gooni u ah kilanka ma noqonaya iyo ismaamulka Soomaaliyeed waa waxa sida Ethiopia iyo Geeska Afrika oo dhan wax ku dambeeyaan laakiin hadda jabhadii iyo maamulkii inay wada shaqeynayaan oo laba xisbi ka inay la heshiiyay oo understanding uu jiro oo maamulkana xisbigan xaakimka uu ka mid yahay qoliyahan jabhaduna xisbi mucaarida ay yihiin laakiin Addis Ababana iyo xagga sarana in la isfahmo ay heshiiyeen halkanna de maamulka ay heshiiyeen oo ay hadda wax arqaladihii ay muuqan taas runtii waa ka isbedelka ugu weyn muuqdo iyo nabadan de dhulka taala waa hadda hadii jabhaduna meel si ay wax u aragto maamulkana si kale u arko waxay u noqon lahayd de jugjug meeshaada jug way xilliga wasaaraha Soomaaliya sida ogna waxa yaraa mas'uuliyiinta federaalka ee ku jira Soomaalida hadda waxa ku jira federaalka mas'uuliyiin أقول هذا حاجة المسؤولين الصومالية حرق العالم كده وكمان وجود فرصة المسؤولين كده ما وارون runtii dadka dhex muuqda waa jiraan oo especially Ahmed Shide waa nin Soomaaliya nin maamulka ka dhex muuqday oo Soomaaliya oo markii ilaa hadda mar walba ama wasiir hore maraan anu kala kulmay Addis Ababa wasiirka gaadiid iyo majruuxbu waaga madheeyaha awaahay warfaafinta email buu ahaa kabacdi wasiir ku xigeen maaliyadda haddana waa wasiir ku xigeenka maaliyadda wasiirka maaliyadda marka waa positionska ugu culus ee habka federaalki waana ku faraxsanahay nin Soomaali inuu awoodahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay filsan oo kale oo gabadh dhalinyaro ah oo wax baratay oo active ah oo ku dhaclay oo isa soo saartay inay ka mid tahay aad baan ugu faraxsanahay aad bay u dhirigelinaysaa in badan oo Soomaaliyeed qof Soomaali oo dhowrayso jir ama 40 gaari dhalinyaro ma aha cimrigeena intaanu ku gaarnaa ama average 40 meeyaa xaalada boos weyn oo haweenkii iyo carruurta dhalinyarada meel ay misaal u noqon karto dadka madoway hadda gabadhaas la yiraahdo Kamala Harris vice presidentka dad badan oo aqalliyaadka dadka laga tiro badan yahay ama madoobaadeen ama muslimaan immigrants ahaadeen yaa runtii u arkaya inay iyana rajaleeyeen inay iyana meel sare ay gaareen marka filsan oo kale gabdho badan khaasatan gabdho Soomaaliyeed oo wax bartay yaa sida iyadu ay ku soo baxday aan ugu soo baxay waday u furtay misaal fiican bay u noqonaysaa waana ku hambalyeynaya waana ku faraxsanahay waxaan rajaynayaa
dadka uun mustaqbalka geeska afrika dowrka ku yeelanaya sidii wax loo qaban lahaa ee nabad waarta loo gaari lahaa ee integration iyo isu imaado geeska afrika oo dhanna ka qayb gala historica ah taariikhiga ah inay ka mid noqotana waa ugu hambalyeynaya waana ugu rajaynaya waayo waxaan ku siin doonaa hadalkaada ugu dambeeyey adiga oo soo gabagabeyn doona hadalkaada ugu dambeeyey maxaa kusoo gabagabeynaya waxaan ku soo gabagabeynayaa aad baan ugu faraxsanahay inaan magaaladan jigjiga imi aad bay ii dhiiri gelinaysaa waxyaalaha hadda ismaamulkana siduu u shaqaynayo ee Addis Ababana uu la shaqaynayo waxaana rajaynayaa in badan baa iyaka Soomaali lahayd Soomaali galbeed oo wax badan oo sacrifice loo sameeyay iyakuna dowrkooda inay cayaaraan oo kow iyakuna heshiiyaan oo leadershipkii loo baahnaa iyo yoolkii ummadda Soomaalidu lahaan jirtay inay noqdaan dabku meeshu ka baxayo ee ifku ka muuqdana inay noqdaan kana warhayaan oo kulley waxa xamar yaala waanayna wada khusaysaa inaan la niyad shabin laakiin in badan oo u tafaxaydata ma aha inaan anigu meesha ka dhex muuqdo laakiin wanaagga iyo ka qaybgalka dhismaha iyo haddii loo dareerayo axsaab mabda iyo qadiyad ku sugan magaaladan SYSH markii la aasaasay 1943 baa SYSH la sameeyay magaaladan meelihii ugu horeeyay ee ugu xoog badnaa SYL bay ahayd waxa uu dhibaatada keenay markii Ingiriisku 1948 wax kala wareejiyay dhibaatadii gaadhay dadkii lagu laayay iyo waana la socdaa haddana waa istaahishaa leadershipka Soomaalida iyo magaalada aan joogay Hargeysa على هان waxaan qabaa labada magaalo meelaha rajada ugu weyn aan ka qabo Soomaali weyn hadda waa la isu socdaa waa la iska warhayaa inay dib u madoobaan oo de aqli iyo xikmad Ilaahay ugu manaystay hadiiba ay noqoto Horn of Africa oo dhan baaba isu yimi hadii Soomaalidu markaa iyagu Horn of Africa soo isugu timi intooda lagu ururin karo waa rajo fiican ayagoo dawlado kala duwan iyagoo hadday doonayso hal dawlada hadday noqonayso meeshan aynu joognaa wanaaga Horn of Africa door weyn bay ku leedahay laano dadkan haddayan raalli ahayn haddayan kalsooni jirin haddayan u arkin dantoodu inay Addis Ababa ku xidhan tahay Soomaali kale oo Ethiopia u arkaysa danay leeyihiin inay taalaana ma jirto marka warkayga waxaan ku soo koobaya ma la dhihi karaa fargelinta Ethiopia Soomaaliya ku heshay way dhamaatay wallaahi dawlad daris leeyahay weeye hadday Soomaalidu helayso iyaba waa fargelin lahaayeen iyaba waxa danta Soomaaliya taa laguma laakiin boqolkiiba laguma eedayn karo laakiin iyaga sidii hore lama waa jirtaa gobolaysigan iyo walwalka Jubbaland laga qaba iyo ciidamada Ethiopia joogay iyo waa ogahay waxyaalaha dareenka waa u qabaa iyo walwalada muuqda laakiin anigu waxaan qabaa tanta Ethiopia iyo maamulkan hadda joogaana kulli inta aan dhawaaqooda iyo aan ka maqlayno wax runtii aan ku hiran karno oo yoola waa u eegay oo integration kan iyo la isu wada yimaado oo haddii noqoto Eritrea ama Ethiopia oo Sudan ama Soomaali shirarka iyo hadallada meelaha laga sheegaya waa warkaas inay sii socdo waa rajaynaya in maadaama geeska Afrika midooyaan Soomaalida inay isaga warhayaan hadiiba la midoobo haddii even economically la midoobo waa maqlaya Ethiopia weligeed waa ku taamaysay inay dekad yeelato Soomaaliyana waxay dadka Soomaalidu leeyihiin waxa ugu weyn waa baddaas danaha la leeyahay dekaduna macna waxa yeelanaysaa haddii suuq weyn ka dambeeyo suuqi weynana waa Ethiopia ila Afrikadaas maqdan moota Soomaaliya dekadaas inay sidoo kale isticmaasho integration lagu raaliyahay hadda aan midowno madaxweyne maxaa yeelana dawlad qura waxaan ka hadlaynay Hargeysa iyo Khaatumo ama Hargeysa iyo Xamar ta Addis Ababana kaba fog laakiin wax lagu hiran karo oo danteenu ku wada jirto waa istaashawaat aad baa ma adiga mudan
كم أصلا ولا شيء أساسا نبتي ما ياد بعد ما حسنت ما سنة الوزارة أو شاود في عنا سي وضع ما أصلا أنت وحين نوع دعوة ديال برنامج سياسي سياسة وأتكلم عن نشيد تي في عالمية نبت تي في أو ما أنت نوعها مرتي سياسي وين sidoo kalena ahaa wasaarihii ugu horeeyay Soomaaliya dawladda haatan jirta Ali Khaliif Galeer inta barnaamijkan oo kale aan kulmi doono waxaan ku dhaafeynaa daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo haba dawladdiisii loo bixiyay madax ka noolku waa baabuur Japanese oo aan buudi weyn lahayn wax badan lagu qaadi karo madaxay marka isagu marba geedka uu hoos fadhiyo yaa dawladdii tahay wuxuu doonana ku kacayo dhibaato badanna waa lagala kulmay noocantii waana xanuunkiisa iyo intii waa ma caafimaadkiisuna ma fiicnayna waa tibeerkii laga bedbedelayay alaa xal arrintaas annana waqti badan baan gelinay iga rumayso priority inaanu iyaka ku bilowno oo waliba Ali Ciise Cabdi oo door weyn ku lahaa dhismaha Khaatumo oo dhan hadda sabab ilaa hadda joogo institute eesha uu madax ka yahay aad buu ugu dhaganaa inaan Puntland wuxuu aad isugu haleynayay Cabdiweli oo saaxiibaan reer Washington DC isla ahaayeen in aan laga quusan taasuu aad ugu dhaganaa waqti badan baan gelinay laakiin Faroole iyo isaga iyo ka hadda jooga midkoodna waxaan ahayn aan kugu shirtago waa xamar markaan tago aan noqdo ana intan oo dhan iga tirsan yihiin wixii aan xamar ka rabo marka waa inaan ka helaa ama prime minister ama madaxweyne waa salaan dadka meesha jooga dadun loo isticmaalayo wax meesha yaala Puntland la sheegaysa meesha ku murmaysa wax on the ground maamul jiro oo Puntland leedahay ma arkaysid ciidamo ay leeyihiin ma ay jiraan haddana meesha waxa quray ku haystaan waa un xildhibaanada marka la dooranayo iyaga magacawda xildhibaanadii dadka loogu tala galay 3 sano tarbay haydanay yeeshaano mid iyakaaba markii horeba la tagay markii horana iyaga magacaabay haddadanna waxyaalaha farmaajo uu leeyahay waa su'aal adag wuxuu ka ogolaaday Siciidani inuu haddana isagu soo magacaabo wuxuu uga jawaabi waayay laano concessionka ina denina waxa ugu weyn oo xamar ka rabaa waa in uu noqdo sanadka iyo house-kaba dadka loo magacaabayo ee maakhir inuu isagu personally inuu personally isagu Puntland laga marka isagu cod u helo isagii hadhowto dee wuxuu noqonayaa nin la yimaada inuu yiraahdo anaaba istaahinana madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo awoodiisa ayaa dee muuqanaysa haddana wuxuuba ku darsaday Jubaland oo alliance-ga isaga iyo ina Faroole iyo Cabdiweli prime minister wuu ahaa ina farmaajahana prime ministernimada sabab uu ahaa inuu markii horena wasiir ka dhigo markii dambena prime ministernimada markii Kampala la isku qabtay ee raba inuu isaga iyo Faroole iyo Cabdiweli intuba waxay ay kuuriga ugu jiraan nin walba inuu xamar ama number 1 ka noqdo ama number 2 inuu madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo la'aanta sool iyo sanaag maakhir ma hawaysan karo hadda hadiiba alliance iyo tol siyaasadeed Jubaland ka helayna dee wuxuu leeyahay muuqatana waabatay ka hor yimaadeen ina farmaajo iyo cilmigan oo la waday 3 gobol waaba takhasab ay noqdo heshiiska ay galeen horta koow wixii wax lagu dhoobdhoobi karo 100% waa la jiraa laakiin haddana xal ma noqonayo oo haddadan aan joogno soo maanta salaasama ma hubno wiik bacdi waxa ay ku heshiiyeen inuu haddana sii soconayo laano marba nin cadhooday oo isagu dan qaran iyo dan maaragtay xitaa meesha uu ka hadlayo aan ka hadlayna dan uu personally isagu rabo dee danaha iska hor imanaya
oo dee waxay noqonaysaa Soomaalida dadka waxay u badan yihiin dad danaha xoogga saaraya danaha anigu wixii lagu heshiiyaba hadday noqonayaan wax inoo midho dhalaya boqolkiiba boqol waa taageersana in meeshaasu ay degto oo adduun weynaha mithaal baynu ka nahay marka laga hadlayo failed state ama dawlad burburtay oo wixiiba meesha ka baxday Soomaaliya ka koowa magaca adiga ma laga yaabaa inaad soo sharaxdo dawladda Soomaaliya maya anigu han siyaasadeedoo dambe igu hadhay da'baanahay Geeska Afrikana wax badan oo fursadaha hadda ka muuqda oo siyaalo badan oo taariikhdu waxyaalaha horeynan arki jirin baa inoo muuqda Ethiopia lafteedii baa gelgelanaysa dadka hadda aaganaan joognay maamulkan Soomaaliyeed oo haddaba ayba tahay meesha qudheen nabad iyo xasilooni ka muuqato waxaan cali ahaan qabaa Soomaali isu timaada door weyn buu ku leeyahay dadka dhulkan degan iyo dadka waqooyiga degan labada meelood meel ficil iyo xamaasad iyo shacabka ah oo Soomaali la isla raadiyo hadda Hargeysa iyo Jigjiga meel aan ahayn kama bilaabmayaan haddii Soomaaliland madaxweynaha la siiyo caasimadda Hargeysa laga dhigaa qolada inay midoobi karaan labada wallaahi la islaba soo qaad sidaan maqlayo laakiin bahasha ku soo boodada laga fiican nimankanu dagaal bay galeen gariya gardarraba dadkoodana waxbay ku kiciyeen waqti qaadanaysaa wixii in fahamka dadka lagu noqdo oo si dhaba wax looga dhaadhiciyo oo loo tuso danta ay hadda intay haystaan inay u fiican tahay in ay mid weyn ka mid noqdaan iyaku ooba ay leadershipka la rabo hadday madaxweyne iyo caasimadiiba la siiyo dee laakiin laba ninoo qol madow isku xidhay arrintaa ma go'aamin karaan dadkanna waa lagu beeray nacayb koonfur waa lagu beeray waa layna xasuuqay waa lagu beeray qabiil ahaan baa laynoo laayey waa lagu beeray wax rajo oo aynu ka leenahay meesha ma jiro yaa ku beeray leadershipka SNM baa ku beertay SNM waxay of course iyakuna waxay dagaal ku galaan bay rabeen haddaadan dadkaaga adaa yaqaana aadan jahayn karin oo wuxuu la qiimayn oo tilmaamaynin dee halkanba oo analaf lagu dabamari karaa maahee dhibaatooyinka hadda Somaliland gudaheeda ku jira umaba gelayno laakiin waxay micno ku yeelan karaan oo iyaka laftoodu isku duubnaan karaan hadday wax Somaliland ka weyn ka mid yihiin oo danaha ay leeyihiinna iyaka oo ay soo jeedaan oo ilaahay caqli iyo xikmad haynagu wada manaystee ay xisaabtamayaan inay waxay diideen iyo waxay gol yihiin laakiin madaxweyne ku doonayaba ha noqdeen wada hadal rasmi ah oo kala leh heerar kala gooniya oo bahasho hadday tartiib u bilaabanto la isla ogolaado wada hadalkan wixii ka soo wada baxa aan sugno laakiin haddii laba madaxweyne ay ku sii isla soo qaadqaadi karaan waa meesheeda waayo siyaasiyiinta inta badan hadda waxa kulmo waa siyaasiyiinta shirka ugu dambeeyay hadda madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale waqti uu gaaminaya madaxweyne Musabixi Solomon Dekan laftooda Farmaajo wuxuu ka cabsanayaa in wadanka hadii la kala qaybin lahaa Somaliland taraf rasin lahaa wuxuu ka cabsanayaa shacabka Muqdisho iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed koonfureed Musabixi laftiisuna si lamid ah inuu shacabka Somaliland sidaa sheegtay SNM inay ka dhaadhiciyaan in dadkan la xasuuqay inay Soomaaliya la midoobaan inay dadkan rabin labadooda dhinac soo muuqato siyaasiyiinta siyaasadii hadday taa tahay si fiican baad ba u dhigtay soo in la faguro oo si tartiiba oo hadday noqonayso technical committees hadday noqonayso wixii Soomaaliya arrimaheeda danaynaya oo si kalsooniya looga wada shaqeeyo laakiin nin safiira ama laba madaxweyne yaa yidhi wixii maanta ka dambeeya camankan iska shumaynaynaa waa isu soo boodnay ma shaqaynayso xisbiyadii laftooda culays bay war xisbiyadii iyo shacabkii iyo saxaafadii iyo waxaan in la bisleeyo weeye in la bisleeyo yaa loo baahan halka ugu dhow wuxuu noqon karaa waxyaalaha haddaba lagu tuurtuurayo ee haddaba waxyaalaha la sheegayo waxa la yidhi madaxweyne inuu noqdo qof waqooyiga laga doortay inuu madaxweyne noqdo waqooyi kale maahe waligaa reer Sheekh Saxaaq qof laga doortay inuu noqdo laakiin laba team ama saddex team baa la isku hayaa
ma 8 sano ay noqono waa 2 term mise 12 bay noqonaysaa waa 3 term yaa laga